بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhiganaa solving a linear equation casharkan toddobaadka weji sideedaadkan wuu ku jiraa sagaalaadka waa ku jiraa tobanaadka waa ku jiraa koob iyo tobanaadka laba iyo tobanaadka kaama hadhayo weji waayo waa xalintii kolba meel ayuu ku galayaa marka inaad taqaano muhiim buu ku yahay waxaan dhahnaa marka waxaa layidhi find the solution of intan waa qiimaha xa markaa ii soo saar ama hel xalinta intan baa layidhi waxaan dhahnaa marka ugu horeysa isbeedaal baan isku dhufanayaa criss cross baan dhahayaa saddex igu dhufa intaas waa saddex oo lagu dhuftay baan dhahayaa saddexa oo loo geeyey shan waxay ii leeg tahay baan dhahayaa hal oo lagu dhuftay laba xa oo loo geeyey hal baan dhahay kabacdi saddex igu dhufa waa sagaal xa saddex shan igu dhufa waa 15 waxay ii leeg tahay baan dhahayaa hal laba igu dhufa waa laba xa hal ku dhufa waa isla hashiin marka maxaa isku eg waa sagaal xa iyo laba xa maxaa kaloo isku eg 15 iyo hal waxaan dhahayaa marka waa soo wareejinayaa sagaal xa labada ii soo wareeji minus laba xa waxay ii leeg tahay baan dhahayaa hal 15 kana ii soo wareeji minus 15 baan dhahayaa marka sagaal xa iga jar laba xa waa 7 xa baan dhahayaa waxay ii leeg tahay 7 xa 15 hal iga jar waa minus 15 minuska ayuu raacayaa nambarka weyn kabacdi waxaan raadinaya waa xa weji dhan kastaba 7 baan u qaybinayaa saan u helo qiimaha markaan ka jaro hal markaan ka jaro 15 waa 14 halkaas kabacdi 7 la saar xa maxaan helay 14 7 qaybi minus 2 baan helay minus 2 ayay ii soo baxday marka waan ka dhex dooranaa su'aasha ayaan soo helay waa su'aasheenii koowaad su'aaluhu waa badan yihiin waa su'aasheenii labaad waa solving a linear equation xalinta isleegta toosan markaa weji afar waan soo dhigay hadda koor kan waa kii shanaad marka fondi waa layidhi solution of intan markaas intaanan isku dhifanba intan laba qaab baad uga shaqayn kartaa horta marka hore kan iyo kan isku dhufo labada hoosena isku dhufo sidii jajabkii oo kale kabacdi ayaa haddana intan isweydaar haddana isku sii dhufanaysaa laakiin waxaa kaaga fudud inaad raadiso least common multiply dhufsaneeraha ay wadaagaan marka labadan isku dhufo waa imise waa 24 bay wadaageen marka waxaan dhahnaa xa oo la hoos dhigay 4 oo lagu dhiftay 24 baan dhahnaa 24 oo loo geeyey xa oo la hoos dhigay maxayna 6 intan ay xidh oo lagu dhiftay 24 waxay ila mid taan dhahayaa 24 lagu dhiftay xa minus 7 baan dhahayaa marka 24 4 u qaybi waa 6 xa igu dhafo 6 xa baan helay hadii 24 6 u qaybi waa 4 xa igu dhafo plus 4 xa baan helay 24 xa igu dhafo waxay ila mid taan dhahayaa waa 24 xa haye igu dhafo 24 7 igu dhafo minus maxaan dhihi 168 baan soo helay marka waa equal maxaa isku eg 6 xa 4 xa 24 xa waa isku wada mid weji waxaan dhahayaa marka 6 xa baan dhahayaa 6 xa oo loo geeyey 4 xa oo laga jaray 24 xa waan soo wareejiyey ayaa waxay ila mid tahay minus 168 bay ila mid tahay labadan isku dar waa 10 xa 10 xa iga jar 24 xa waxay ila mid tahay minus 168 10 xa iga jar maxayna 14 saan hore inagu sheegay minusku muxuu raacayaa nambarkeena marka 24 markaan 10 ka jaro waa minus maxaan helayaa 14 xa waxay ila mid tahay baan dhahayaa minus 168 kabacdi dhan kasta waxaan u qaybin maxayna minus 14 halkana minus 14 ilaa waxaan raadinaya waa xa 14 iyo 14 baas la bixi haye
14 marka iyo 14 isla baxaan maxaa igu soo hadhay meesha minus iyo minus kan isla saar maxaa igu soo hadhay waa he 168 u qaybi 14 12 baan helayaa oo markaa ila mid ah a ayay ii soo baxday waa ila faateen baan u maleynayaa su-aasheenii saddexaad weji find the solution of interpolated marka waxaan raadinaynaa least common multiplier dhufsaneeraha ay wadaagaan marka dhufsaneeraha ay wadaagaan intani waa maxayna waa 6 weji dabadeed maxaan dhahnaa xa oo la hoos dhigay 3 oo lagu dhuftay 6 oo loo geeyay 5 oo la hoos dhigay maxayna 2 oo lagu dhuftay 6 baan dhahnaa ayaa ila mid ah 6 oo lagu dhuftay minus 3 over 2 6 3 u qaybi waa 2 2 xa igu dhufo waa 2 xa baan dhahay 6 2 u qaybi waa 3 3 5 igu dhufo waa 5 iyo 10 baan dhahay 6 2 u qaybi waa he waa 3 3 3 igu dhufo waa minus 9 baan dhahayaa marka maxaa isku eg kan iyo kana isku eg waxaan dhahayaa 2 xa waxay ila mid tahay minus 9 kan markaan soo wareejiyo isna minus buu noqon minus 5 iyo 10 labadan isku dar marka waxaan helayaa 2 xa waxay ila mid tahay dhahayaa minus 4 iyo 20 marka waxaan raadinaya waxaa dhan kastaba 2 xa laba u qaybinaya 2 iyo 2 xa wataan raadinaya 4 iyo 20 2 u qaybi waa minus xa maxaan helay minus 2 iyo 10 bay soo baxday oo marka ila mid aan dhahayaa a ayaa ii soo baxday waa su-aasheenii afraad find the solution of intan waxaan dhahnaa marka ugu horeysa maxaa isku eg 1 iyo 7 loos dhigay 2 waa isku sii weji waa number iyo number doorsooy ma raacsana marka waxaan dhahayaa 5 over 2x ayaa ila mid aan dhahayaa 7 la hoos dhigay 2 minus markaan soo wareejiyo minus ma noqon 1 markaan halkan hal baa iyo hoos taalla isweydaar baa markaas ku dhufanaya cross baa ku dhufan waxaan dhahayaa 5 oo la hoos dhigay 2 xa waxay ila eg tahay hal igu dhufo 7 waa 7 oo la hoos dhigay 2 minus hal igu dhufo 2 waa minus 2 hashiina way hoos taalla haye markaas labadana bes ku dhacaya marka waxaan dhahayaa waa 5 oo la hoos dhigay 2 xa waxay ila eg tahay 7 laga jaray 2 oo la hoos dhigay 2 ayaan dhahayaa 7 2 iga jir waa 5 marka maxaan dhihi 5 xa oo la hoos dhigay 2 waxay ila eg tahay 5 oo la hoos dhigay 2 isweydaar baa markaas ku dhufanaya cross 2 igu dhufo 5 xa waa 10 xa baan dhahayaa waa 10 xa ayaa ila mid ah 2 5 igu dhufo waa 10 dhan kastaba 10 xaggana 10 waxaan raadinaya waa xa 10 la saar xa maxaan soo helay 10 u qaybi waa hal baan soo helay xa hal ba ii soo baxday oo markaa ila mid ah a ayaan dooranaya waa su-aasheenii shanaad ee xalinta isleegta toosan waxaa la yidhi find the solution of intan waxaan dhahayaa marka ugu horeysa maxaa isku eg 15 oo loos dhigay 4 baa ila mid ah ayaa wuxuu isku mid yihiin 9 waayo waa number waxaan dhahayaa marka minus 7 xa ayaa waxay ila mid tahay 9 kan ii soo wareeji minus 5 iyo 10 oo loos dhigay 4 marka halkan hal baa iyo hoos taalla 4 igu dhufo 9 waxay ila mid tahay waa 36 hal igu dhufo 15 waa 15 hal iyo 4 isku dhufo waa 4 marka 5 iyo 10 iga jar 30 iyo imisa 30 iyo 6 iga jar maxaan helayaa 21 baan helayaa waxaan dhahayaa marka minus 7x ayaa ila mid ah 21 oo la hoos dhigay 4 isweydaar isku dhufo haddana halkan hal baa iyo hoos taalla 4 igu dhufo 7 waa minus 28 xa waxaa ii leg tahay 21 hal igu dhufo waa 21 marka waxa aan raadinaya waxaa dhan kastaba minus 8 iyo imisa 20 xaggana minus 8 iyo 20 baan dhahayaa labadan waa isla baxayaan markaan labadan aan isla saaro waxaan dhahayaa 21 7 u qaybi waa 3 baan dhahayaa 3 8 iyo 20 7 u qaybi waa 4 baan dhahayaa minuskiina waa raacaya markaas
a ayay ii soo baxday. waa ila fahantaan u malaynaya. su-aashani lixaad weji find the solution of interval. marka u fiirso waxa isku eg isku meel bay maraan 2x iyo -x waa isku meel bay marayaan. maxaan dhahayaa iyo kanna isku meel bay marayaan. waxaan dhihi laba xa waa laga jaremaa waan soo wareejin loo geeyay bay noqon xa ayaa waxay la mid tahay 26 oo loos dhigay 3 oo loo geeyay bay hadma laga jaray bay noqonaysaa markaan soo wareejiyay 5 oo loos dhigay 3 labadan isku dar waa 3 xa hooseeyo hadduu isku mid noqdo mid baa laga soo qaadanayay. waxaan dhihi marka waxaan dhahayaa waa he 26 5 iga jar waa 21 la hoos dhigay baan dhahayaa maxayna labadan mid iga soo qaado 3 21 3 u qeybi waa 7 marka maxaan dhihi waxay ila mid tahay 7 baan dhahay. marka tan kaste 3 xa maxay la mid tahay 7 tan kaste 3 waxa aan raadinay waa xa isla saar waxaan soo helay xa waxaan soo helay 7 la hoos dhigay 3 baan soo helay oo markaa ila mid ah aaway a ayay ii soo baxday. su-aasheena 7aad find the solution of interval. markaan ka shaqeynayna waxaan raadsanaynaa dhufsaneeraha ay wadaagaan least common multiply. maxay wadaageen waa 12 labadaas markaas ku dhufto waa 12 bay wadaageen. marka maxaan dhahayaa 3 xa oo loo geeyay yani 2 xa oo loo geeyay 3 oo loos dhigay 3 oo lagu dhuftay 12 oo loo geeyay baan dhahayaa xa oo laga jaray 1 oo la hoos dhigay 2 oo lagu dhuftay 12 oo loo geeyay baan dhahayaa xa oo loos dhigay 1 yani xa oo loo geeyay 1 oo loos dhigay 4 oo lagu dhuftay baan dhahayaa 12 waxa ila mid tahay dhahayaa 8 oo lagu dhuftay 12 isla fahmi 12 u qaybi imisa 3 waa 4 4 igu dhufa markaa maxayna 2 xa waa 8 xa 4 haddana igu dhufa 3 waa 12 haye 12 laba u qaybi waa 6 igu dhufa xa waa hadhaaya loo geeyay 6 xa 6 hal igu dhufo waa -6 baan dhahayaa. markaan sidaa dhaho haddana kanaan isticmaalayaa 12 4 u qaybi waa 3 igu dhufo xa waa 3 xa baan dhahayaa oo loo geeyay 3 xa haye hal igu dhufo 3 waa 3 labadana waan isku dhufanay marka maxaa isku eg baan dhahayaa 8 xa 6 xa 3 xa isku soo dar 8 6 ugee waa 14 3 ku dar waa 17 xa haye 12 -6 plus 3 12 ugee 3 waa 15 6 ka jar waa 9 oo loo geeyay 9 baan dhahayaa. labadana waan isku dhufanayaa labadan 8 baan ku dhufan maxayna 12 maxaan helayaa waa 96 baan helayaa 96. marka maxaa isku eg 9ka iyo kan waan kala jarayaa waxaan dhihi waa 17 xa waxay ila mid tahay dhahayaa 96 laga jaray 9 baan dhahayaa. marka waxay ila mid tahay 9 ka jaray tan 17 xa waxay ila mid tahay dhahayaa markaan inta 9 ka jaro maxaan helayaa waa 8 7 waxaan raadinay waa xa tan kastaba 17 xagana 17 isla saar labadan xa maxaan helay 87 oo la hoos dhigay maxayna 17 marka oo ila mida ee baan dhahayaa.